Soomaaliya oo ku jirta marxaladda dib u soo kabashada nidaamka dawladnimada iyo soo celinta maqaamkeedii masraxyada caalamka iyo miisaska lagu go'aamiyo masiirka ummadaha dunida waxa ay halgan adag ugu jirtaa xoojinta siyaasadeeda arrimaha dibadda ee ku luntay ismaandhaafka dadkeeda. horumarka nidaamka dawladnimo ee ku dhisan isla xisaabtanka wax ka qabashada baahiyaha bulshada, kobcinta dhaqaalaha, dhismaha ciidamada qaranka, horumarinta cadaaladda iyo sareynta isirka Soomaalinimo ee ka hana qaaday gudaha dalka waxaa dheer tallaabooyinka muuqda ee loo qaaday jihada hagaajinta hanaankeeda diblomaasiyadeed ee guunka ah. meerta hogaamineedka madaxweynaha sagaalaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa uu noqday mid kamid ah waqtiyada horumarka muuqda laga sameeyay xoojinta siyaasadda arrimaha dibadda dalkeena. waa November 2019 madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kormeeray dhismaha xarunta safaaradda Soomaaliya ee Kenya dhaayihiisana ku soo arkay burburka iyo dayaca ka muuqday muraayadda laga eego nooca dawladnimo ee ka jirta dalkeena ayaa adkeeyay muhiimadda ay leedahay in degdeg loo dhameystiro dhismaha iyo dayactirka xarunta safaaradda. safaaraddeena waa aragtay intee la eg tahay waxaan qiyaasi karaa inay tahay annaga kullayba safaaradda ugu weyn aan adduunka ku leenahay inay tan noqon karto. laakiin haddii meeshii waa burbursan tahay waxay u baahan tahay in bilicdeedii iyo quruxdeedii iyo wanaaggeedii la soo celiyo idinkana aad iska bilowdaan maxaa yeelay waa gurigaagii waay wax gaar u leeyahay safiirka ma aha wax aniga aan leeyahay ma aha waa wax naga haraaya oo jiilka soo socda dhaxal u ah waay. waxaan u baahannahay safaaraddan muddo kooban gudaheeda 9 bilood in la yiraahdo Soomaaliya waa soo noolaatay oo qofkii safaaradooda fiisa ka doonta safaarad lamid ah Nairobi kuma taalo waa meelaha la iska fiiriyo waay meelaha laga fiirinayo dawladnimadaada iyo maxaan ku raahdaa sharafkaaga meelaha la iska fiiriyo waay. sanad kadib isla November safaaradda Jamhuuriyadda Soomaaliya waxa ay ku howlgashay xarunteedii diblomaasiyadeed oo ka turjumaysa dib u soo kabashada dalkeena kadib markii dayactir lagu sameeyay. badan ayaan waxaan wadamada aan ku lahayn safaarado badan marka waxay ahayd inaan jirin maqnaasha waa ka maqnayn adduunka way macnaheedu haddana markaan xataa bilownay waxa lagu bilaabay maaragtay ama qolal yar ama siguri yar waxa lagu bilaabay quursi bay ahayd marka laakiin maanta waxaan taaganahay safaaraddii ugu weyneed safaaradaha Kenya intaan ka ahayn midda Mareykanka inaan hadda dhex taaganaho ay leedahay Soomaaliya ay tahay wax Soomaali ay leedahay. milicsateen muuqaalka qurxoon ee ay maanta leedahay dhismaha xarunta laga ilaaliyo xuquuqda muwaadinka Soomaaliyeed lagana hago danaha dalkeena ee ku wajahan dawladda aynu dariska nahay ee Kenya balse isweydiiyo waa meel ma halkani maxay uga duwan tahay safaaradaha aan ku leenahay dunida inteeda kale maxayse tahay sheekada u baahan in jiilasha dambe ogaadaan ee ku duugan halkan. dhulka safaaradda Jamhuuriyadda Soomaaliya ee dalka Kenya oo ah hanti maguurto ah oo uu leeyahay qaranka Soomaaliyeed waxaa la iibiyay sanadii 1973 waqtigaas dawladdii Soomaaliyeed ayaa ka bixisay adduun lacageed oo gaaraya 550,000 oo shilinka Kenya ah si loogu adeego danaha diblomaasiyadeed ee dalkeena. 22 sano oo xaruntan bulshada Soomaaliyeed ka qabtiraysay baahidii loo dhisay kadib waxa ay gacanta Soomaalida ka baxday sanadii 1994 xilligaas oo hab aan sharci ahayn dhismaha safaaradda looga iibiyay nin ganacsade Kenyan ah asal ahaanna ka soo jeeda dalka Hindiya. markii dagaalkii suuqay wadanka ka dhacay 1991 safiir Soomaaliya wakiil uga ahaa wadanka Kenya ayaa si qalad ah u iibiyay dhulkaas 1994 wuxuu ka iibiyay nin Hindi ah laakiin Kenyan rasiidkiisa heesta ayuu ka iibiyay markuu iibiyay dabcan safaaradda waxaa la joogay diblomaasiyiin kale khayr laasiyo waxa uu horeeyay qasuulkii amnin ku xigay ambassador Muuse Xirsi Faahiye hadda uu geeriyooday Allah u naxariisto waagi dambana safiir wuxuu nooga ahaa Djibouti asaga iyo nin kale hadda nool Allah xafido Maxamed Cumar Gaangal yiraahdo iyo diblomaasiyiin kale
ayaa diiday inay ka baxaan safaaradda. dadaal iyo halgan dheer oo ay galeen diblomaasiyiintii safaaradda iyo bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi oo ay cuntami weysay in hortooda lagu xaraashto hantidii ka dhaxaysay ayaa 7 Diseembar 2010 guul ku soo eebiyay halgankoodii muddada soo jiitamayay. waqtigaas maxkamadda sare ee dawladda Kenya ayaa go'aamisay in gacanta diblomaasiyiinta Soomaaliyeed lagu soo celiyo dhulka iyo dhismaha safaaradda Soomaaliya ee Kenya. qareenkii ama qaaligii markuu go'aanka gaaray qolkaan fadhinay waxaa la qaatay buux dadka Soomaaliyeed ayaa aad u farxay oo meesha ka qaaday heeska calanka Soomaaliya ka qaaday anaga dhawaan jiroconay farxad awgeed. dabcan ninkii oo dhulka si qaad u iibsaday uu naxay meeshana wuu ka cararay. markaan soo baxnay dawladda nimid maadaama go'aanka noo gaaray waqti go'aankan aan haysanay waxaan go'aan gaarnay inaan tagno guriga laftigiisa oo aan sugin maalin kale. Soomaalida meesha joogtay iyo kuwa kale dibad oo ka maqlay inaan guulaysanana kulligeen waxaan isku tagnay guriga safaaradda. anagii meeshaan nimid isla maalintaasba calankaana waa wadanay meeshii birti oo sagaashameeyadii calan ka surnaa meesha ku yaalla oo calanka ay ka dejiyeen iyadoo roob da'ayo ayaa calanka meesha ka taagnay. iyadoo la tixgelinayo go'aamada maxkamadda lagana baaqsanayo dulsaar lacageed oo culaysin kara tunka dhaqaalaheena, dawladda Soomaaliya ayaa dib ugu celisay ganacsadihii Kenyaanka ahaa lacagtii sida aan sharciga ahayn hore loogu iibiyay safaaradda. horta lacagta markii loo xukumay ninkaas muddo 10 sano ka badan baahay muddaas jiideynay wuxuu dhowr goor baan saragnay lacag badan waaye. lacagtii waxay socotoba oo la sii jiido markii noqotay gurigeena lagu shaqeyn waayay oo looga faa'iideysan si la rabay ninkiina hari waayay oo dulmigii iyo tuuganimadii iyo hore uu soo shaqaystay oo reeyna sii wado ayaa waxa la mahadiya in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu go'aansan lacagtii la bixiyo. xeelahu sheeganayo laha maxkamadaha iyo waxa iga bixeen oo hore laga qaatay in loo celiyo saaska isku xirmo madaxweynaha uu mahadnaqaya go'aankaas oo qaatay inuu lacagta ku bixiyo si loo badbaadiyo hantida qaranku leeyahay oo loogu shaqeeyo shacabka looga faa'iideeyo. dib u dhiska iyo daahfurka 30 sano kadib safaaraddii Soomaaliya ee Kenya, hirgelinta taariikhda markii ugu horeysay safaaradda dalkeena ku yeesho dalweynaha Mareykanka, ka mid noqoshada saaxiibo iyo xulufooyin cusub oo dheef wadaag ah, iyo soo celinta Soomaaliya oo madax bannaan gaaridda go'aanadeeda siyaasadeed ee masiiriga ah waa guulo diblomaasiyadeed oo bidhaaminaya heerka soo noqoshada awooddii siyaasadda arrimaha dibadda dalkeena. dawladdan hadda inta joogtay waa la socotaa meelo badan oo hore weliga safaarad ugu lahayn Mareykanka oo kale weliga safaarad kuma lahayn. tankii hadda aragtaa madaxweyne lacagta u bixiyay maanta oo lagu shaqeynaa dhulaan leenahay calankan ka taagan. marka arrimaha dibaddu waa wajigii turjumaysay waxa gudaha ka socda.